Soomaali waxaan leeyahay Soomaali waxba isuma qabto dibi kama dhaxayso walaaltinimadooda waxaa laga dareemayaa golahan caleemasaarka beeldaajiye Maxamed beeldaajiye Ismaaciil beeldaajiye Cabdillaahi inta isu timid afarta koone Soomaali baa laga yimid waxay cadaynaysaa Soomaali in ay walaalo tahay cidii xarkahan lagu kala xiray ka furi lahayd inay doonayso waxaanu idinka codsanaynaa haddaa siyaasiyiinta tihiin xarkahan aad lagu kala xirteen naga fura isukaaya fasaxa anna kala qoqobanina walaaltinimada iyo wanaagga iyo wadajirkaanu wax idinku nahay idinna wax ku tihiin saasaanu idinka codsanaynaa dhaqankana waxaan leeyahay hawshu waxay Soomaalidu tiraahdaa riyuhu jeeyahoodu labay u qaybsan yihiin hawshu waa u qaybsan tahay labana way ku xoqataa labana way ku qodataa hawsha Soomaaliyeed inay sidaa u qaybsanaato oo wixii siyaasad iyo dawlad dhisa loo daayo siyaasiyiinta wixii dhaqana iyo isu keenis iyo walaalayn iyo isu fur iyo ilaahay hadduu ku rooyahayna dhaqanku ay qaataan oo golayaashoodu ay u madax bannaanaadaan insha Allahu tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina soo qaboojiyo ilaahay waxaynu ka raxmaad baynu weydiisanaynaa gacantiisay ku jirtaa cid kaloo bixin kartaa ma jirto ilaahow waxaanu kaa baryaynaa inaad raxmaad noo shubto raxmaadka ilaahow noo shub beeldaajiyaha ducada dambe yeelan doono waa u sii kaabaynaa haddii eebba idmo inta xanuunsanaysa xanuunka Allah ka dulqaado xanuunka Allah ka dulqaado caafimaad Allah siiyo inta qaamaysan qaanta Allah ka bixiyo nabadgelyo ilaahay weydiisanaynaa Soomaaliyo dhan baynu nabadgelyo ilaahay weydiinaynaa ilaahay saasaynu ka baryaynaa ilaahay waxaynu u weydiinaynaa oo gacmaha cirka ugu taagaynaa oo ilaahay inagoo dulaysan aynu ka baryaynaa inuu beeldaajiyaha mas'uuliyadda maanta la saarayo uu ku asturo ilaahu ku asturo ilaahu ku asturo ilaahu tolkii ogolaysi ilaahu mid raallahaanshahaga ugu taliya ka yeel allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi faatih